waa laba wadan ee isku haysto xuduud ka wada dhaxayso oo muddo aad dheer kadib isku dagaalaan iyagoo rasaas la isku adeegsanaynin. warbaahinta waaweyn oo aad u wada hadal hayaan isbuucii la soo dhaafay. magaciigu waa Cabbaas Mustaf, halkan waa Rumaan Media. kusoo dhawaada daawadayaal muqalkena maanta. inaan like saarto videogan waxaan naga caawin doonaa YouTube-ka inuu dad badan gaarsiiyo. muddo ka badan 40 sano ayaa arrintaas ka dhigan tahay markii ugu horeysay oo dhumisho intaas la eg la soo sheego. Hindiya ayaa waxay sheegtay in dhinaceeda ka dhinteen 20 askari oo ku jiro korneyl markii ay isgacan qaadeen ciidamada China ee habeenkii Isniinta. Ma cadda inta askar ay China ku dhinteen halkaas, laakiin dhankooda waxay sheegtay in khasaare soo gaartay 42 askari. dagaalkaas askarta intaas la eg ee ku dhinteen ama ku waxyeeloobeen ayaa hal rasaas la isku ridin ay waxay askartu ku dagaalamayeen dhagaxaan, budad iyo gacmahooda. meesha lagu muraysan yahay ayaa ah gobol aad u weyn xadka labada wadan oo mid walba sheeganayo, iyadoo muddada labada dhinac ay ku soo gurayaan aagaas ciidamo fara badan oo xajinaya firsamadooda. aagga la isku haysto oo la dhaho Aqsay iyo Ladag ayaa waxa waaye meel aad u qabow oo lama deegaan ah. buuro korkeeda oo dhulka ka sareeya 4200 mitir ku taala halahaas ayaa waxa adag neefshadooda oo jooga sare dhibaatooyin iyo xanuuno u keeni karo haddii uusan qofka si tartiib ah ula qabsanin. haddii kale madax xanuun, wareer iyo tabardarnaan ayaa qofka leelisa keeni karto in uu dhinto. waxaana intaasi sii dheer barafka iyo jawiga aad ku qabow. intaas ayaa waxay la qaaday dhimashadii dheeraadka ah ee meesha ka dhacday. ciidamada Hindiya ayaa bilowgii sheegeen in 3 askari ay ku dhinteen, mar dambena waxay sheegtay in 17 askari kale oo ka mid ah ay meesha ku dhaawacmeen iyagoo jibigooda ka qayb qaateen dhimashadooda. waa maxay muhiimadda ay leedahay aaggan la isku haysto? meesha xadka ah oo la kala joogo ayaa waxaa la astaameeyey dagaal dhex maray labada dal 1962 kadib. dagaalkaas ayaa waxa uu bilowday Oktoobar ee sanadkaas markii ciidamada China oo laba jiha ka soo oo uu bari iyo galbeed oo isku jirto 1 kiiloomitir ka soo weeraray ciidamada Hindiya oo ku sugnaa xuduudda oo la isku haysto. jihada bariga ciidamada Hindiya iyo China oo isku haystaan ayaa waxa u dhaxeeyay webi. Hindiya ayaa difaac adag saartay buundooyinka ay isla haayeen ciidamada China ayaa ka soo tilaabayaan, laakiin ciidamada China ayaa isticmaalay buundooyinka waxay baabuurtooda waaweyn soo mariyeen webiga dhexdiisa oo xilligaas badan aysan mareenin iyadoo mugdiga habeenkii kaashanayo. aroortii ayaa China madaafiic ku garaaceen meelihii ay fadhiyeen ciidamada Hindiya. dagaal muddo qaatay ayaa meesha ka dilaacay iyadoo guul ay ka gaareen ciidamada China, taas oo ku qasabtay ciidamada Hindiya in u feexdaan wadanka Bhutan. qaybta galbeed sidaas oo kale ayaa loo jibiyay ciidamada Hindiya oo 4 maalmood gudahooda loogu qabsaday badanaa dhulalkii la isku haystay. dagaalka ayaa dhowr isbuuc joogsaday iyadoo labada dawladood ay ka wada xiriirayeen ay u xalin lahaayeen khilaafkooda. 14 November ayaa isku hormaad dib u soo bilowday markii Hindiya oo soo qaaday weerar rogaal ciis ah oo dhowr maalmood gudahooda ciidamada China oo meelo dheeraad qabsaday. intaas kadib China waxa uu cilaamiyay xabad joojin gadaalna u noqday. dagaalka ayaa ciidamada lugta ka qayb qaateen oo ciidamada cirka kuma aysan jirin, maadaama ay meeshu tahay meel buro badan aysan haleelin in lagu dagaalamo. ayaa waxa adag in ciidamada difaaca ku jiro la soo xoojiyo, maadaama ay adag tahay in hal mar askarta lagu soo daadiyo aagga dagaalka oo u baahan yahay in ay la qabsadaan jawiga qallabsan ee meesha ka jirta. waana waxa keenay in dagaalka askarta yar oo 20,000 ilaa 30,000 oo askar labada dhinac ka soo saftaan. meeshii lawaagaas la kala joogay line of control ayaa u xaduud ah labada wadan. inkastoo dhul intaas ka badan dawlad walba sheeganayo tan iyo waagaas nabad ay ku wada joogeen labada ciidan. waayidan waxaa soo wada celiyay muran. labada dhinac ayaa waxay rabaan inay meelaha ay maamulaan ka wada dhistaan wadooyin iyo infrastructure jiro la kala dhisan, laakiin dhinac walba waxa uu ka baqayaa in dhinaca kale ee gobolka uu awood roonaadaan, maadaama shuruudaha u fududeynayo ee si fudud u taageeraan ciidamada gobolka ay ku wada joogaan. mar walba oo dhismo yimaado xadka la isku haysto labada wadan ayaa marun yimaado. marar qaar ciidamada gacanta ay iskula tagaan iyagoo hal xabad isku rid, laakiin dhacdadii ugu dambeysay ayaa dhalisay dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan. inkastoo labada dawlad ay sheegaan inay dhameeyaan inay xurgufta sii baahin oo ciidamada labada dhinac aagaas iska joogo ay yareeyaan. dabadu muuqaalkan ku cajiib, fadlan like saar haddii aadan ka mid ahayn haweenta ku taxan YouTube-kan oo subscribe taabo lana wadaag asxaabtaada.